jaajuusiin la shaqeeya Mareykanka oo ku kala sugan garoomada diyaaradaha ee Dimashq iyo Baghdad ayaa ka caawiyay Mareykanka in uu helo xogta safar ee General Qasim Suleymani kadibna uu halkaasi ku dilo. Waxaa sidaas warisay wakaalada wararka Reuters. Suleymani iyo afar ilaalo ah oo ka tirsan ciidamada kacaanka Islaamiga ah ayaa diyaaradda Jamwings ka soo raacay magaalada Dimashq kadibna soo aaday Baghdad. Suleymani ayaa ku safrayay diyaarad rakaab ah isaga oo ka fogaaday inuu adeegsado diyaarad gaar ah si aan loo beegsan. Sidoo kale Suleymani iyo ilaaladiisaba marnaba laguma darin xogta rakaabka diyaaradda si aan loogu warhelin. Sidaas oo ay tahay Suleymani ayaa markii uu yimid Baghdad oo ay soo galbiyeen kolonyo ka kooban 2 baabuur waxaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo rideen ciidanka Mareykanka. Baarayaasha dalka Ciraaq ee kiiskan ayaa rumaysan in dad ka shaqeeya garoomada diyaaradaha ee Baghdad iyo Dimashq balse si hoose jaajuusiin uga ah Mareykanka ay gudbiyeen xogtiisa. Baaritaanka kiiska Qasim al-Suleymani ayaa waxaa hogaaminaya Falix al-Fayaad oo ah la taliyaha amniga qaranka Ciraaq. Dad kala tuunsan yahay waxaa ku jira 2 saraakiil amni oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Baghdad. 2 ka mid ah waxa weeyaan waa shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee Jamwings, jaajuus ka shaqeeya garoonka Dimashq iyo qof kale. Hay'adda sirdoonka dalka Ciraaq ayaa rumaysan in 60 qof oo aan weli la xirin in ay ka qayb yihiin shabakad jaajuusiin ah oo si hoose ula shaqeeya militariga Mareykanka isla markaana u gudbiya xogaha muhiimka ah. 2 shaqaale oo ka mid ah shirkadda diyaaradaha ee Jamwings ayaa waxaa sidoo kale baaritaan ku haya sirdoonka Syria sida ay 2 sarkaal amni u sheegeen wakaalada wararka Reuters. Natiijada hordhaca ah ee baaritaanka ayaa muujinaysa in xogtii ugu horeysay ee Suleymani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha Dimashq si uu sheegay sarkaal amni. Shaqada unuga sirdoonka ee garoonka Baghdad ayaa kadib ahayd inay xaqiijiyaan imaanshihiisa Qasim Suleymani iyo nooca kolonyada baabuur ee uu ku safrayay. Markii intaas xog ah loo gudbiyay Mareykanka durba waxaa soo kacday diyaarad daroon ah oo dhowr kantaal ku dhufatay kolonyada uu la socday Suleymani oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi al-Muhandis oo ahaa hogaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shahaad al-Shacb ee dalka Ciraaq. Guud ahaan waxaa goobtaasi ku naf waayay labadooda iyo 8 qof oo kale oo ilaalo ahaa. Aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa u codeeyay qaraar lagu xadidayo awoodda militari ee madaxweyne Donald Trump ee uu u leeyahay in uu dagaal ku qaado dalka Iran. Qaraarkan ayaa waxaa isku raacay inta badan xildhibaanada Koongareeska inkastoo aan weli loo gudbin aqalka sare oo ay ku badan yihiin xisbiga Jamhuuriga. Talaabadan ayaa loogu gol leeyahay sidii uu madaxweyne Donald Trump Koongareeska uga soo wargelin lahaa talaabo walba oo militari oo ka dhan ah dalka Iran. Waxaase laga reebay haddii Iran ay weerar ku soo qaado Mareykanka taas oo uu madaxweynaha xaq u leeyahay in uu iclaamiyo dagaal. Dalalka Mareykanka iyo Iran ma aanay shaacinin dagaal militari oo dhexmara inkastoo Iran ay sheegtay in weerarkii dhowaan ay ku qaaday saldhigyada Mareykanka ee dalka Ciraaq uu bilow u ahaa talaabooyin militari oo ay damacsan tahay. Koongareeska Mareykanka ayaa cuskaday xeerka awoodaha dagaalka ee sanadkii 1973 kaasoo aqalka Koongareeska uu awood u siinayo in ay eegaan awoodda uu madaxweynaha u leeyahay in uu dagaal iclaamiyo. Hase yeeshee waxaa weli taagan su'aalo la xiriira dhanka sharciyadda taas oo ah in Koongareesku uu cuskan karo qodobkaas. Afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa markii Mareykanka uu dilay Qasim Suleymani waxay sheegtay in aysan aaminsanayn in Trump uu nabadgelyo ku soo dabaalay Mareykanka balse madaxweyne Trump oo ka hadlay qaraarkan ay u codeeyeen aqalka Koongareeska ayaa sheegay in uu rajaynayo in xisbiga Jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay ay qaraarkan ay ku gacan seeri doonaan. Arrinta ayaa timid kadib markii Iran ay weerartay saldhigyada Mareykanka ee gudaha dalka Ciraaq. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in aysan jirin dad Mareykan ah oo wax ku noqday weerarkaas. Burbur aan sidaas u sii weyneenna uunan soo gaarin xarumahaas. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in Iran ay u muuqato in ay dib u degayso oo ay nafistay mar
uu la hadlayay warbaahinta ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa kale oo uu sheegay Iiraan in ay hadda dib u degtay maadaama buu yiri ay beegsatay saldhigyada ciidamada Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa sidoo kale sheegtay in cunaqabatayno hor leh ay ku soo rogayso dalka Iiraan si loogu jawaabo talaabada argoosiga ah ee ay qaaday xukuumadda Tehran. Trump ayaa dhinaca kale dalalka Midowga Yurub, Ruushka iyo Shiinaha ka dalbaday in ay ka baxaan heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan kaasoo uu dhowaan Mareykanku laalay. In ka badan 10 gantaal oo laga soo riday gudaha Iiraan ayaa lagu garaacay 2 saldhig oo ay ciidamada cirka ee Mareykanku ku leeyihiin magaalooyinka Irbil iyo Al-Asad oo dhinaca galbeed ka xiga caasimadda Baghdad ee dalka Ciraaq. Weerarkaas ayaa dhacay habeennimadii ay Talaadada sii baxaysay, Arbacaduna ay soo galaysay. Dhowr gantaal oo kale ayaa ku dhacay meelo masaafo u jira goobihii uu bartilmaameedka u ahaa. Weeraradan ay dowladda Iiraan ay fulisay ayaa yimid saacado yar kadib markii la aasay Generaal Qasem Soleimani oo ahaa taliyihii ciidamada Iiraan ee Bariga Dhexe. Ugu dambeyntii waxay noqonayaan kuwii ugu horeeyay ee ay Iiraan si toos ah ugu qaaday Mareykanka tan iyo qabsashadii safaaradda Mareykanka ee Tehran sanadkii 1979. Sida lagu daawacay warbaahinta Mareykanka, dowladda Iiraan ayaa si kama ah u soo riday diyaaradii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine taasoo Arbacadii ku dhacday meel u dhow magaalada Tehran ayna ku dhinteen dhammaan 176 qof ee la socday. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in diyaaradda Ukraine International Airlines oo nooceeda ahaa Boeing 737 ilaa 800 uu ku dhacay gantaal. Burburka diyaaradda rakaabka ah ayaa yimid saacado kadib markii ay Iiraan fulisay weerar gantaalo loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala Ciraaq. Warbaahinta CBS oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegaya in qalabka satellite-ka hawada uu qabtay cadeymo muujinaya in diyaaradda uu gantaal ku dhacay. Dowladda Ukraine ayaa goor sii horeysay sheegtay inay baaritaan ku hayso sababtii ay u dhacday diyaaradda iyo in uu soo riday gantaal. Hase ahaatee, Iiraan ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in gantaal uu ku dhacay diyaaraddaas, balse waxay sheegtay in uu socdo baaritaan ku aadan waxa soo riday diyaaradda.